السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maanta casharkeena wuxuu ku saabsan yahay tensiga sideedaad oo ah past perfect continuous tense. Cibaran lahada waan yara hargabsanahay. Past perfect continuous tense is used for an action which had been going on and completed when another action started. Past perfect continuous tense waxaa loo isticmaalaa fal for an action fal which had been going on kaas oo sii socday and completed kadibna dhamaaday when another action started markii oo fal kale uu bilowday. When another action started yani waxaa loo isticmaalaa fal kaas oo socday kadibna dhamaaday fal kale markuu bilowday. qaacidadiisa waxaa waaye formula waa subject plus had plus been oo ahaansho ah plus verb plus ing plus object. marka I, we, you, they, all of them kuwaan oo dhan waxay qaadanayaan had. yani past perfect continuous markii la joogo I, we, you, they, he, she, it intaan oo dhan waxay qaadanayaan had. Okay, tusaale examples statement. Okay, Ali had been sitting here. Ali had been sitting here for 2 hours before I came. Ali had been sitting here. Ali wuxuu fadhiyay inta sitting here for 2 hours 2 saacadood before I came intaan aniga iman. Ali had been sitting here for 2 hours before I came. Ali wuxuu fadhiyay inta 2 saacadood intaan aniga imanin. He had been crying in pain all night. He had been crying in pain all night, but no one came to him. Okay, and waa iska taqaanin waa he waa subjectii. tusaale Ali waa subjectii, had waa verb to be plus been oo ahaanshii lagu daray, sittingna waa verbkii oo ing lagu daray. marka sharaxaad dheer uma baahna because casharada hore kusoo sharaxay. Okay, he had been crying in pain all night but no one came to him. He had been crying in pain wuxuu la oynayay xanuun dartiis all night habeenkii oo dhan, but laakiin no one qofna came to him uma iman. He had been crying in pain all night but no one came to him. habeenkii oo dhan wuxuu la oynayay xanuun dartiis ama xanuun laakiin qofna uma iman. No one came to him yani waxaan soo sheegnay in loo isticmaalo fal socday kadib intuusan dhamaan and completed when another action started. fal kale intuusan bilowin. tusaalaha kugu filan before I came. tusaale xali intuu fadhiyay 2 saacadood uu fadhiyay before I came intaan aniga imaan ka hor. waxaa ka fahmi kartaa marka inta falkaas Ali inuu meeshan fadhiyay ay tahay had been going on waa inuu fal sii socday ah yani la soo dhaafay and completed waxaa sii dhamaaday when another action started markii fal kale uu bilowday. yani when another action started fal kale sii bilowday. falka kale bilowday maxaa waaye waa before I came intaan aniga imaan. falka kasii horeeyay ee sii socdayna maxaa waaye waa Ali oo meeshan fadhiyay 2 saacadood. kaas waa falkii sii socday which had been going on. Okay, uncompleted maxaa waaye completed waxaa waaye for 2 hours 2 saacadood meesha fadhiyay. when another action startedna fal kale markuu bilowday fal kale bilowday ah before I came aniga iman. Okay, ku dheeraaday xoogaa markii laga dhigayo question waa hore u soo sheegay sharaxaad uma baahno. waxaa la soo hormarsiinayaa had oo ah verb to be. Had Ali been sitting here for 2 hours before I came. Ali meeshan miyuu fadhiyay intaan aniga imaan 2 saacadood miyuu meeshan fadhiyay intaan aniga imaan ka hor. su'aal. Had he been crying in pain all night but no one came to him. habeenkii oo dhan macnaha xanuun muula xanuunsanaa. had he been crying in pain macnaha xanuun muula oynaya dartiis habeenkii caawid oo dhan ama habeenkii oo dhan laakiin qof ma imaan miya qofna uma imaan miya. Okay, I hope in la fahmay insha Allah. casharka maanta ayuu ku egayo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. la soo casharka kale soo socda insha Allah hana ilowina subscribe garayso. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.